السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا داوديال قصدنا مانتا. داوديال مانتا waxaan ka hadlaynaa qiso cajiib ah. Qisadan waxay ku dhacday gabadh ka soo jeeda dalka Mexico. Gabadhan ayaa lagu magacaabaa fadumo. Fadumo waa gabadh dhalinyaro ah, da'deeduna tahay 28 mise 28 jir. Waxay ku soo barbaartay qoys Yuhuud ah. markaa fadumo iyadoo ka waramaysa qisadii ku dhacday ayaa waxay tiri kii aan dugsiga dhameeyay ayaa waxaan u boqolay dalka Ingiriiska gaar ahaan caasimadda London. kadib markii aan Ingiriiska imaaday waxaan bilaabay hawlihii waxbarasho. waxaan la soo degay qoys muslim ah. markaa waxaan ka helay ama aan la dhacay qoyska siduu u dhaqmayo, ixtiraamka, asluubta familkaas. waxaan go'aansaday inaan la xiriiro qoyska muslimka ah. hooyada qoyska ayaan ka codsaday inaan su'aalo weydiiyo. hooyadiina way i soo dhaweysay anigoo isweydiinay su'aalo fara badan, taas oo i khalkhal gelisay oo aan diimaha Kiristaanka iyo Yuhuudda aan ka waayay wax macquul ah oo Ilaahay iyo bini aadamka waxa ka dhaxeeya. diinta Islaamka ahna ka qabay cabsi. markaa hooyadii ayaa ku tiri diinta muslimku waa diin cadaalad ah. gabadh iyo wiil waa diin cadaalad samayso. diinta muslimku waa diin xaq ku dhisan. markaa waxay tiri markii aan sheekada dhamaynay waxaan u kacay jaamacad. waa qisadii bedeshay fadumo. waxay tiri anigoo u dhaqaajiyay meel lagu nasto waxaa iga soo horbaxay masjid. kadib masjidkii ayaan galay. waxaa iga soo horbaxay sheekh gadhweyn oo cad. sheekhii ayaa i soo dhaweeyay. wuxuu iga codsaday si sharaf iyo ixtiraam ku jirto inaan xirto xijaabka. aniguna iskumaanan adkayn. waan soo xidhay xijaab. kadib masjidkii ayaan soo galay. sheekhii kitaab ayuu i soo siiyey qur'aan Ingiriis ku qoran. kadib muddo ayaan akhris ku jiray qur'aanka. maalin maalmaha ka mid ah ayaan soo galay masjidka. waxaan ku dhawaaqay islaamnimadayda. maalintaasna waxay ahayd Jimce. imaamka masjidku aad ayuu u farxay, laakiin aniga ayaa ka farxad badnaa sababtoo ah waxaan noqday qof muslim ah. markii aan dhammaystay jaamacaddii waxaan ku soo laabtay qoyskaygii. markaa hooyaday ayay aragtay anigoo xidhan xijaabka, balse waxba ima dhihin. taa cagsigeeda aabbahay ayaa igu soo galay anigoo tukanaya. xaafaddii ayuu igu yidhi bannaanka ayaad ka tahay. hooyadayna kumayna qanacsanayn islaamnimadayda. walaalkay hooyaday aabbahay bannaanka tahay ayaa lagu yidhi. sidaas ayayna kaga soo baxday fadumo qoyskeedii. aynu garab istaagno qof walba soo muslima, sababtoo ah qof walba faamil ayuu leeyahay. faamilkiisi dhinaca ayuu kaga imi. haddii aad muuqaala ka heshay like saar. mahadsanid.